roobab mihigaan ayaa ka da'ay guud ahaan gobolka Gado gaar ahaan degmada Balad Xaawe. Warbaahinta qaranka ayaa u kurgashay roobka baaxadda weyn ee ka da'ay degmada Balad Xaawe, waxayna wax ka weydiisay shacabka ku dhaqan degmada sida ay u arkaan roobkani, waxayna shacabka sheegeen in ay ku diirsadeen roobka ka da'ay degmada isla markaasna ay ka reesan doonaan kuleelihii badanaa ee ka jiray degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. waxayna kale sheegeen in Ilaahay ka rajeynayaan inuu cudurka halista ah ee coronavirus-ka uu ku daahiri doono roobka ka da'ay degmada. waxaa sidoo kale roobkan uu ku soo aaday bisha barakeysan ee Ramadaanka oo kuwana qaar ka mid ah dadkii ka hadlay goobta ayagoona Allaha ugu mahadceliyay roobkii ka da'ay degmada Balad Xaawe. waxaa la yiraahdaa Cabdiwahaab, waxaan ku noolaa degmada Balad Xaawe. alxamdulillaah waa la fiican yahay. Ilaahay roob fara badan buu na siiyey oo aan kala go' lahayn. cudurkii corona iyo balaayo iyo wixii Ilaahay waa naga qabtay. magaaladana waa caafimaad qabtaa. boqolkiiba boqol wax dhib hadda ma soo yeerin. xaaladda beledka waa heer sare, waa la fiican yahay. alxamdulillaah rabbil caalamiin. sidaas weeye. waxaan joognaa waxa waaye waa degmada Balad Xaawe. Ilaahay noo nimceeyey roob iyo barwaaqo iyo bashbash. maalmahan iyo bilahan waxaa la isla dhex marayay cudur coronavirus inuu jiro. alxamdulillaah ma filayno inuu cudurkaas uu maanta nahayo ama uu na saameeyo. ma filayno roobkan iyo barwaaqadan iyo ramadaankan iyo cibaadadan iyo bashbashtan buu Ilaahay naga raaciyey. alxamdulillaah rabbil caalamiin. Ilaahay baa ku mahadsan. hadda muddo wuxuu socdaa, adiga wuxuu bilowday 8 saac iyo bar meelahaas ilaa hadda wuu socdaa. hadda mar dhow buu naga qaada. wallaahi alxamdulillaah degmada Balad Xaawe wax hadda cudurkaas uu saameeyey iyo wax uu dhibaato ku hayo midna maana arag. marka waxaan rajaynaynaa insha allah wadamada kale uu dhibaatada ku hayana inuu Ilaahay dhibaatada ka qaado. annagana Ilaahay sida aan uga magan galnay oo uga cibaadaysano u la'anahay inuu Ilaahay nagu. waxaan u mahadcelinayaa meeshan waxaan uga mahadcelinayaa TV-ga qaranka Soomaaliya iyo dhammaan madaxda qaranka. anoo magacaygu uu yahay Cabdullaahi Cabdiqaadir, ku nool degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado. maalmahan waxaa noo da'ay bishan Shacbaanka ilaa iyo bishan Ramadaanka roob. muxuu ahaa waxaan ka baxnay duruufihii farada badnaa ee bulshada haystay oo ahayd maaragtay qoraxda iyo mataqaanaa maxay ahayd muxuu ahaa oomanihii ka jiray daafaha degmada. hadda waxaa moodaa inaan roobaysanay. roobkan waxyaabo fara badan oo naga saacidaya oo ay ka mid tahay in maaragtay annaga mar haysano qalab aan cudurrada qaarkood aan mataqaanaa ku nadiifino. roobkan wuxuu naga saacidayaa in uu naga dhaqay cudurradii aan mataqaanaa aan ka baqaynay oo sida cudurkan haddadaan adduunka aafeeyey oo coronavirus. waxaan isleenaha roobkan uu naga dhaqay. marka waxaan sii rajaynaynaa in Ilaahay uu noo keenin oo mataqaanaa roobka uu naga raaco. aad baan ugu faraxsannahay in maaragtay degmadeennii annagoo sooman oo aad moodaysa inaan qorax arkayn maalintii oo dhan. awal meeshii degmada ay ahaan jirtay meel xoogaa yara kulul, laakiin haddadaan waxaa moodaa in roobka uu yahay mid isdaba joog ah. waxaan u mahadcelinayaa oo mahad gooni ah Ilaahay subxaanahu watacaala. mahad kadib waxaan u mahadcelinayaa TV-ga qaranka ee degmada Balad Xaawe. TV-gaas wuxuu noo hayaa horumar ballaaran. waxaad moodaa in maaragtay si habsami fiican mataqaana noogu soo gudbiyo wararka iyo mataqaana dhalinyarada in mataqaana waraysiyo oo free ay siiyaan. meeshii awal TV-yada ka shaqayn jiray degmada ay ahaayeen TV-yo maaragtay aad xataa aad ku helen jaanis. marka TV-gan magacaygu waa Kowsar Cabdiraxmaan Barqalle oo joogta degmada Balad Xaawe. halkan waa degmada Balad Xaawe aa u jeedaan oo roobkan ku da'ay maanta 8 saac iyo bar ayuu roobkan oo bilaaday. haddana waa 11kii barkii. roobkan aa u jeedaan wuxuu ka hortag u yahay cudurka loo yaqaano coronavirus ama COVID-19. yahay dadkaas inaad soontaan waa fiican tahay because bil barakasan oo Ramadaan lagu jiraa. because bishaas waa bisha dambiyaasha la dhaafayo, sheedaanka iyo waxaasna la xiraayo. waxaan u mahadcelinayaa TV-ga qaranka. anigoo Abuukar Cali Cabdi waxaan u sheegayaa dadka in macnaha nimcada roobka Ilaahay noo keenay degmada Balad Xaawe aan ka faa'iideysanay. barwaaqo Ilaahayna siiyey. coronaga iyo viruska iyo balaayada la sheegayna Ilaahay uu naga dulqaado. soonkii Ramadaankii annagoo nabad ku soonnay. waxaan u sheegayaa nimanka masoomayaalka ah inay Ilaahay u noqdaan oo ay soomaan. magacayga waa Cismaan Cabdullaahi Sheekh.
waan barwaaqaysanay waxaan isku helnay bil ramadaan roob ilaahay uu kuu roon yahay magaalada waa u jeedaan barwaaqada ka jirto isbuucaan oo dhan waa iska roobaysanay bil waxaan isku helna soonna iska qabow roobna alxamdulilah ilaaha ma hadda iska leh coronavirus iyo waxaan caalamka laga sheegaya in annaga ilaaha naga qabtay haddana waxaan buwaarnaa inuu daadka raacay roobkan uu ilaahay noo keenay waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada nimcadan uu ilaahayna siiyey in macnaha ayagana maxaa la dhihi jiray ay ku shukriyaan tv-ga qarankana waa u mahad celinaya magacaygu waa Bukhaari Maxamed waxaa joogaa degmada Balad Xaawo alxamdulilah waa nimcaysanay saa aragtaan waxaa waaye nimcada ilaahayna soo gaartay alxamdulilah roobkii qabowgii maasha allah soon iyo nimco waxa sheegan waa dambi alxamdulilah ilaahay ku mahadinaynaa barwaaqada asla wada aragnaa kulley waxa waaye waxaas waa wada biyo dadka ku dabaalanayaan maasha allah ilaahay ku shukrinayna alxamdulilah 8 saac iyo xogaha uu bilowday iyo bar meelahaas ilaa ma taqaanaa salaada casr laga baxay uu daay maasha allah waxaan u mahad celinayaa tv-ga qaranka wariyaha maasha allah shakir cabdinuur shibley xasan cabdinuur shakir warbaahinta qaranka degmada Balad Xaawe ee gobolka Gado.